Bismillahir Rahmanir Rahim. Saaragtaanba screenka waxa ka muuqda laba icon ama laba sawir Git iyo GitHub. Waxaan baran doonaa markaa course gaaban short course ah. Crashkan waxaan ku baran doonaa markaasi Git iyo GitHub labadaasi qaabka loo isticmaalo iyo markaasi waxa ay ku kala duwan yihiin. Badanaba dadka markay ku cusub yihiin waa isku qaldaan Git iyo GitHub waa isku qaldaan. waan barnayaa marka labadaasi iyo qaabka loo isticmaalo iyo marka waxa uu ka caawinayo inta badan. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar, like, comment, samee, asxaabtaadana markaas la share garee si ay ugu faa'iideystaan. Saaragna meeshaanba sawirka dhanka bidix ka muuqda ka waxa lagu magacaabaa GitHub waa iconka markaasi GitHub, midka ka muuqda dhanka midigna waa Git. labadaasna waa arkaynaa markaasi waxay ku kala duwan yihiin. inta aan ku jirno markaasi course-kan iska gaaban crash course-kan waxaan ku baran doonaa markaas waxyaabo yar yar oo ay ka mid yihiin Git maxay tahay, inaan barano Git waxa ay tahay. sidoo kale waxaan baran doonaa markaasi basic commands-ka ee Git markaasi ay leedahay ayaan baran doonaa inta markaa ugu muhiimsan. kama hadli dooni waxyaabo markaasi aad u ballaaran sida branching-ka qaabka loo sameeyo iyo collaborative-ka qaabka markaasi loo isticmaalayo. intaa kama hadli dooni insha Allah kaan waxaan u sameyn doonaa markaasi video u gaar ah haddii waqti markaasi aan u helo. sidoo kale waxaan ku arki doonaa inta crash course-kan aan ku jirno Git ignore waxa uu yahay ayaan baran doonaa. sidoo kale ugu dambeyn waxaan baran doonaa lagu magacaabo GitHub. ugu horeyn haddii aan ka bilowno waa maxay markaasi Git maxay tahay. Git waa markaasi waa version control system ayaa lagu magacaabaa markaasi. waxa uu ku qabanaya waxay tahay feelashaadii ama dhaqdhaqaaqii ama wixii adiga aad sameysay ayuu markaasi ku track gareynayaa. waa version control system. marka tusaale ahaan form ayaad sameysay, 2 maalin kadib formkii si kale ayaad ka dhigtay, maalmo kadib si kale ayaad ka dhigtay. marka waxa awood u leedahay inaad aragtid versionadii aad soo sameysay ama software aad sameysay version 1 ay u bixisay, software ki update ayaa ku sameysay waxa u bixisay markaasi version 1.1 ay u bixisay. sida u wadid muddo kadib waxa gaartay version 3 meelahaas. haddii aad u baahatid inaad u noqotid version 2.1 si sahlan ayaa markaasi aad ugu noqon kartaa. dhammaan wax markaasi ku track gareynayo ama la soconayo dhaqdhaqaaqaas versionska kala duwan ayaa lagu magacaabaa Git ayaa lagu magacaabaa. tusaalahaan iska soo qaadano meesha waxa ka muuqda form yar ayaa ka muuqda oo ka kooban laba input fields iyo hal markaas button ayaa meeshaas ka muuqda. hadda markii aan formka sidaan u sameeyo maalmo kadib aan go'aansado marka formka in wax ka bedelo aan ku soo daro markaasi qayb kale aan ku soo daro aragnaba marka hore waa username password waxaan ku soo daray markaasi name ayaan ku soo daray. haddana mar kale ayaa waxaan ka bedelay markaasi email ayaa muhiim macna formkan u baahday email ayaan ku soo darnay. mar kale ayaa haddana waxaan go'aansan inaan ku soo darno markaasi confirm password inaan markaasna aan ku soo darno fieldkaas. haddii aad rabtid markaasi si sahlan inaad ugu noqotid oo u baahan tahay oo kaliya username-kii iyo password-kii oo kaliya haddii aad u baahan tahay si aad ugu noqotid way adag tahay. waxaa ku qasban tahay wixii adiga aad soo samaysay inaad baabi'isid oo si sahlan uma laabi kartid. laakiin Git markii la taagan yahay waxaan sameyn doonaa markaasi Git ayaan isticmaalaynaa anagoo dheheyno marka ugu horeyso formkii aan diyaarino tusaale ahaan username password-kii aan sameyno kaas waxaa u bixinaa version 1 ayaa u bixinaynaa oo intaan ayaa markaan muhiim u ahayn. tusaale waxaa laga yaabaa formkeena ama systemka anaga aan sameynayno wuxuu u baahan yahay oo keliya labadan shay ayuu u baahan yahay. intaas markaan sameyno version 1 waxaa u bixinaa markaasi commit ayaa sameynaa magacii wax ayaa u bixinaynaa aan ku aqoonsanayna anaga. haddana markaasi waxaan ku darnay username password iyo submit button saddexdaas ayaa markaasi ku darnay. muddo kadib ayaa haddana version-kii bedelnay waxaan ka dhignay version 2 waa bedelnay version 2 markaas waxaan ku soo darnay name ayaa ku soo darnay. muddo kadib haddana waxaan ku soo darnay markaasi email ayaa ku soo darnay. muddo kadib oo version 4 anaga aad taagna waxaan ku soo darnay markaasi confirm password ayaa ku soo darnay. si sahlan markaas waxaa awood u leenahay
in aan ku noqono mid ka mid tusaale ahaan waxaan ku noqon karnaa midkan version 2 ayaa si sahlan ugu noqon karnaa anagoo markaas ay caawin doonto wax lagu magacaabo git ayadoo caawinaysa markaas dhammaan version 1 2 3 4 way macnaha uu ku keedinaa waxa ku keedinaa markaas git ayaa ku keedinayso si sahlan ayaa waxaad ugu noqon kartaa markaas versionkii adig aad rabtid haddii aadan rabin markaas confirm passwordka si sahlan meesha aad ka tiri lahayd ayaa simple waxa ugu laaban kartaa versionka saddexaad ayaa ku laaban kartaa oo emailka oo kaliya ku ekeysiinaysaa haddii muddo haddana u baahatid in password muhiim oo confirm password muhiim ku noqday aad dareemtid oo aad rabtid ku soo laabatid adigoo mar kale qorin kaliya waxa bedelaysaa markaas versionka ayaa bedelaysaa version 4 ayaa dooranaysaa meesha ayuu markaas ka sii soconaa marka wuxuu ka caawin wax aad u fara badan meeshii adiga aad sameyn lahayd system dhammaystiran hadda salaam waxaad ka soo qabtay form yar laakiin markii aad sameyn system aad u ballaaran ama website aad u weyn markii aad sameynaysid muddo kadib website waxa ka bedeshay muddo kadib bedelo badan aad sameysay laakiin adigoo aan isticmaalayn git waxa ogaatay markaas in versionka hadda adiga aad taagantay in laga fiican yahay versionkii hadda ka horeeyay kii ka sii horeeyay inuu aad markaas macquul yahay oo ma u fiican yahay ka ayaa u baahatay si aad ugu laabatid waa macnaha problem weyn ayuu markaas kugu abuuraa waxa qosbanta wixii hore inaad tirtirtid laga yaabaa markii aad tiraysid wax kale oo muhiim u ahay versionadii hore muhiim u ahay in gacanta kaaga dhacdo ama ee baabaan ayaa muhiim ah markii aad tirtay haddana waxa u baahatay in versionkii ugu dambeeyay hadda adiga aad taagnaadna ku soo laabatid haddana waxa qosbanta markale inaad qortid marka waqti badan ayaa ka dhumayo problem badan oo ka qabsan kar dhankaas laakiin markaad isticmaalaysid git markaad isticmaalaysid wuxuu ka caawinaa markaas versionska inaad isku bedeli kartid marba version in aadi kartid versionkii markaas adiga arabtid aad aadi kartaa simple adigoo markaas waqti badan usan ka lumin versionskaagana markaas ay ku keysan yihiin ayaa markaas awood u leedahay marka qaabkaas ayaa arki doonaa qaabkaas ayaan u sameyn doonaa markaas gitkan command versionskan wuxuu ku keedinayaa computerkaaga git wuxuu ku keediyaa markaas computerka ayuu ku keedinayaa waxa u baahan kartaa markaas computerkaaga laga yaabaa inuu bari halaabo ama wax ku dhacaan ama computer kale aad soo geedatay ayaa macquul ah meeshii wixii aad soo koobiye lahayd oo ama dib u qori lahayd simple waxaad isticmaali doontaa lagu magacaabo GitHub markaas oo ah meeshii aad ku keeday versionskaaga oo online ahaan aad ku keedi lahayd aad ku keedisid si hadhow computer kaleeta aad kaga soo geli kartid ama dad kale haddii ay kula shaqeynayaan iyagana markaas versionkii ay sameeyeen ama bedelkii ay ka sameeyeen versionkaasi ee markaas GitHub ka saari karaan oo adigana markaas GitHub ka aad kala bixi kartid wax ka soo bedeli kartid oo GitHub ka ku soo celi kartid markaas qaabkaas collaborative ka ah marka qaabkaas ay arki doonaa insha Allah inta aan ku jiro markaas crash course-keen qaybtan inta ayaa ku joojinaa fadlan marka la tahdo video ku caawiyay like comment share subscribe inta u sameey